بسم الله الرحمن الرحيم والله ما أركان وصرت أقدم بيس سومالي أوجادية عن أصوب بندقايو أو ضد بدن الميديا بنك الشيء جاي ربع ما أنت أنا هالكن عندك حقي جو شركة أو أنا لف إيو أي شريسو عبد إلي إثيوبيا إنه إثيوبيا شقق كلهم بنت الشيء جايو أيان عدين تذبحنا يا ninka Axmaariga yaqaan waxaad gashaa beedka 180 wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ay kaga hadlayso jaraa'idkan hadda aan idin soo sawiray waa jaraa'idka ugu afdhar Itoobiya 98 waxa uu sheegay waa guarantee way absar faris baa la yiraahdaa waxa jira wasaaradda arrimaha dibadda qayb kamid ah waxay ka qarinaysaa Itoobiya dadka kale inay kacaan oo xanaaqaan oo shucuurta ku sii kacdo Itoobiya xornimo la siinayo Soomaalida ogaadiya lagu kaco marka raadiyaal badan baa oo Itoobiya ka jiro oo dibadaha ka soo gala ayaa waxay sheegeen inay Itoobiya oo Soomaali ay leeshiinayso oo aan xorriyad siinayso dadka shacabka inay ku kacaan darteed bay Axmaariga u sii deysay laakiin observers jaraa'idkan ninkii raba Itoobiya waxa ka jiro oo runo observers al fiirsadaa oo meesha caalamka u fiiriyo waa jaraa'idka indhaha kaliya Itoobiya runta sheego observers waxaan rabaa marka maanta inay wax soo qortay adila artaan qof kasta oo galwaka waa ku soo galiyay waxa uu xaqiijiyay in ay kulmeen in uu shirka u dhaxeeyo xisbiga talada haya ee Itoobiya ee TPLF loo yaqaan iyo oo hogaaminayo oo erga ahaan ay u soo direen Itoobiya inay ogaad oo aan laf wax alla waxay rabaan ay siiyaan oo ay la gorgortamaan wax walbana loo yeelo taa uu cadeeyay inay tahay وصونا عدينا إلا دبي إنه سو سعودي شركان دبينا اللي يسقو أفقرتي إنه كم من نقدان وحلا قرنا حتى جورنال كان واكجرا إنه إذا ماذا كم من نقدان إنه إثيوبيا قرب سيان إن إيجانا أبتلقى قاضيو أو شيء كجرين مركا وح وليه مركا جرائد كان وحقيقي إثيوبيا وفنايا إثيوبيا وأقوى صوتها أرجع حسو أوركا أو أنا لف أو الشباب كمد هي القاعدة هي إثيوبيا وأقونسنت أيام مانت إثيوبيا إني تدد بنو حزب TPLF وأولوه الشينا يهوسه أيو تصيا شعب كسوما إثيوبيا وكوك عنايا مركا وحنا هالكن قالوا كتصنايا إن هالكاس قفكي سياسة يقانو إن وربا قرب مانت صومالي إني كرادينيان أي هذا الشيء يفرح معلم بهالكن كسو بحي ها إني كعد ربان قرب سيان oo maanta ku caburiyaan axmaarada iyo oromada way ka cad halka joornaalka qofka sida uu yiri isaga ma bayaaninayo laakiin hadalka sidoo uu akhrista joornaalka sidoo wuxuu leeyahay iyadoo wax walba oo ogolaanayso Soomaalida ogaya mid kale inta dadka beenta sheegayo gabre wuxuu cadeynayaa inuu yahay cornel ciidamada qalabka sida ee militariga Itoobiya ka tirsan oo federaalka uu cadeynayaa dad baa waxay ku doodayeen ma aha federaal taana waan idin xaqiijinaya waxa kale inta halkan idin kaga xaqiijinaya oo aan rabaa in observers ka daawataan beenta la soo koobaya dadka reer dhuna qaataan u bixiyay marna Cabdi Ilay la jira marna oo ala la jira marna dhadhaxaad iska dhiga ayaan halkan ku xaqiijinaya waxa ay yihiin waxaan rabaa in mar kale aad eegtaan oo idin ku cadeynaya ergad waa berigii shirkan wuxuu la mid yahay shirkii markuu joornaalka dad akhrisaan ay tigree Soomaalida ogaadaya goday kula kulmi jirtay ay dhihi jireen 1997 inay tahay baan filayaa u dhahayay maanta tigree iyo aan u wada hadallo ogaadaya oo Itoobiya ila gumaysta kiyo kale la mid tahay wuxuu cadeeyay in uu tirada ka dambeeyo shirkani oo Dubai wax walba la isla qalab dhigayba waxaan iska calaamasaar yahay laakiin Dubai wax walba lagu heshiiyay oo secret wax oo dhan ba halka ka akhrista anigu inta ka badan ma sii hadli karayo laakiin lama arkaan waxa uu sheegan rabaa in dadka shacabka ogaadaan inuu run yahay shanta sirdoonka shanta Soomaaliyeed laakiinse waxaan kula talinayaa mar kale inta shacabka Soomaalida ogaadeen yasa Cabdi Ilay iyo Wayaani iyo yasa saaxiibayaal argagax media ka muujiya waa qayb kamid ah dagaalka halganka gobolnimadoonka Soomaalida ogaadaya oo shaki ku jirin marka calool jilaac yaan inaga dareemin Itoobiya way tagtay saaxiib way qabaysatay haddii cabdkan burbura xataa annagu waxba qalbigeena dhibna hoo dhigana waan huba sa garanti baan u huba inay tagayaan oo wiilkii 5 sano idin sheegi jiray waxa soo socdo dhan mucjisada ah
anigu waxaan sheegan waa arkaysan wayaana sanada ma dhameysanayo halka isku day uu doonayo waa Brownigan hadda uu ciyaarayo uu ka raadinayo oo NLF naxariista ee ah in ay garab siiyaan soo journalka u cad yahay sida weeye inuu garab siiyaan oo NLF oo Soomaalida ogaadeen ay garab buuxa ka helaan waana shirkan wuxuu la mid yahay shirkii 1997 ka dhacay saasan wax walba ogahay lama arkaan waxaan leeyahay oo NLF ha istiirso ha is adkayso laakiin yuusan saxiix ka yeelin Cabdi Ilay hadhow way ka boodi karaan nimanka lama arka oo nimanka la yiraahdo wayaana waa nimanka wasaaradda arrimaha dibadda qaybta Afxmaariga ku qorayo shirka wuxuu u dhaxeeyaa Soomaalida Itoobiya iyo Banti sheegay laakiin observers ba cadeeyo ku qarxiyay kiiski laakiin shirkan waxaan idin sheegayaa inuu shir qaali anigana horey baan u riyooday wallahi riyadeeda 98% waa la arkaa waxaan horey ugu riyooday baan idin Cabdi Ilay iyo Soomaalida oo NLF jigjig ka dageyso hadda xasuusnaataan uu ku jira aniga hadda kama sheekeyn doona waxay ahayd ma garan karaan ku Cabdi Ilay baa soo dhiibay ma Itoobiya xornimo waxa taa nimanka tiiba socota laga yaabo iyadana Ilaahay xaqiisa ka noqota laakiin Ilaahay toobada hana saajiyo laakiin saasaan idin ku leeyahay waxaan idin xaqiijinayaa wixii rabo waxa meesha ka socdo sirka ayaa la dhayeelsanin hal akhristo observers waxaan kale beenaalayaasha soo galay media red on qaatay aniga ii daaya lama arkaan baa la yiraahdaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saan wax u kala aqaanana wallahi oo billahi oo tallahi deegaankaasiito aan ka sheekeynaa sida ugu sheekeynaa shaqo ku milihi nin u dhashay oo ka soo jeedana miihi oo aan lafna miihi laakiin waxaan ahay mujaahidka shanta Soomaaliyeed lama arkaan